inina dhageysatay waxaad maqasheen General Cabdiraxmaan Caare oo kamid ahaa madaxdii sare ee militariga Soomaaliyeed ee hogaaminaysay dagaalkii dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya sanadii 1977 ilaa 1978. General Caare waxyaabihii uu ka hadlay waxa kamid ahaa dhaliishii abaalmarineed ee dagaalkii kadib iyo sida uu sheegay ujeedada la'aantii dagaalkaasi oo uu isagu u arkayay inay ahaydun in lagu burburiyo ciidamadii Soomaaliya ay markaasi lahayd. waxa kale oo jananku ka hadlay arrin ka dhacday meesha la yiraahdo garab case oo u dhow magaalada Jigjiga oo ciidamada Soomaalidu ay ku dileen 84 iyaga kamid ahaa oo General Caare uu ku tilmaamay inay kamid ahayn raggii dagaalka ugu qiimaha badnaa. haddaba waxa isaguna aanu arrintaasi aan wax ka weydiinay Cabdirasaaq Caqli oo kamid ahaa saraakiishii wax ka hogaaminaysay ururadii ciidamada goobahaasi ka dagaalamayay. Cabdirasaaq Caqli waxa uu bilaabay sida tan. laba aag ayaan dagaalka ka qayb galay. mid wuxuu ahaa aagan Harar ayaan ka qayb galay. markii dambana waxaan ka qayb galay aagan Jigjiga iyo Jinacsane intaas ereadaas ayaan ka qayb galay. waxaad ka warantaa Cabdirasaaq bal ka waran dagaalkaasi waxyaabaha aad ka xasuusan karto ama kuugu cusla adiga markaad eegto maxaa kamid ah? horta dee dagaalku runtii asalkiisuba marka dagaalka la galo waa wax wada dhib badan hase ahaatee waxay sii kala xun yihiin markay qofka ku adkaato marxaladda uu maraya ee aada uga adkaato. intii aanu dagaalka ku jiray annaku waxay noogu xumayd markii aanu maraynay Harar agteeda oo markaa anigu waxaan ahaa taliyo urur oo mar ururka iyaga la go'doomiyey oo afarta dhinacba laga maray oo la waayay meel cuntana loo soo mariyo iyo saad iyo rasaas midnaba la waayay. marka waxaan ku jiray doox Harar u dhow agteeda oo ilaa 3 kilomitir u jira. marka dooxaasi baa run ahaantii aanu difaac weyn ka galay. marka hadda markay noogu xumeyd waxay markii aroornimadii uu dagaalku bilaabmay markay casarkii gaabnaad ahay ayaa raggii taangiga la dagaalamayay dhammaantood ay noqdeen wax dhaawaca iyo wax dhintay. markaasina ilaa 3 taangi ayaa nagu harsanaa. dabeeto 3dii taangi ayaa la waayay cid allayaal cid ku riday xabad lidka taangiga raggii ridayay ee taangiga xabadaha ku ridayay lidka taangiga yaqaanay ama basuuka watay ama magaranaysaa qoryahan B10ka oo aanu haysanay markaa ama B11ka labadaba magaranaysaa ridayay ayaa dhammaantood waxay noqdeen rag dhaawac iyo dhimasho. marka waxay nagu kaliftay 2 nin oo dhaawac ahaa inaanu qaadno oonu hor dhigno taangiyada soo gelaya markaa wadada soo gelaya. haddii markaa cadceedu dhacdana ciidanka iyagii nagu dhow oo diyaaraduhu hortaagnaayeen ayaa markaana soo gelaya oo ciidankan xagga dambe naga fadhiistay baabiinayaba. labadii nin ee dhaawac ahaa ee la qaaday wadada labadooda dhinac baa la dhigay. markuu taangigii dooxiisa uga soo baxay ayuu ku dhuftay ninkii ridayay magaranaysaa lidka taangiga ridayay ayuu taangigii si fiican ula helay uu ku ololiyay. dabeeta isna taangigii ka dambeeyey ayaa isna toogtay oo halkaa ku dilay. marka ninkii kale lidka kale taangiga haystay ayaa isna taangigii toogtay isna ku riday kii kale xabadii kale ku riday isna ku ololiyay. haddana taangiga ninkii toogtay ee dhaawacmay ee markaa joojiyay labadii taangi horta halkaasaa lagu joojiyay halkiiba ku waaqeen. dabeetana ciidankii waxay noqotay inuu kala jeesto oo aanu kala jeedsano oo markaa ilaa cadceedu dhacaysay aan xabashadii ay u suurtageli weyday inay ururkii dhinaca ka soo galaan. cadceedu markay dhacdayna waxaabana soo galay ciidankayagii oo ilaa magaranaysaa dhowr urur ah. haddaba waxaa iyadoo la yaab leh ninka sidaas oo kale ninka maalintaa dhaawac isagoo alla qaaday magaranaysaa taangiga toogtay. ninkaasi wuxuu ahaa raggii lagu dilay Jigjiga ayuu kamid ahaa ayuu ninkaasi ahaa. isagoo nala jooga ayaa nala yidhi markaa urur walba ha keenaan 12 nin oo ay ku kalsoon yihiin oo markaa taliyihii aagga xukumayay oo ahaa Maxamuud Ciro Cornel Ciro ahaa ayaa yidhi urur walba 12 qof keeno
dabeeta 12 qof nin walba waxba u qaatay siba u qaatay marka la 12 qof oo lagu kalsoon yahay run ahaantii aan markaa waxaan u qaatay 12 nin oo la dalacsiinayo oo wanaag leh markaa ninkaasaan ku daray dabeetana waxaan ogaanay in yar kadib in raggii la laayay urur walba 12 nin buu keenay 7 urur baan ahay inuu meesha fadhiya marka waxa weeyaan in meesha 84 nin halkaa lagu dilay yaa 84 ka markaa mid dhaawaca oo ka soo fakaday oo meedahan looga tagay ninkaasaa sheegay markaa in raggii la laayay laakiinse ninkaa ka soo badbaaday wuxuu soo dhex galay galabnimadii maqribkii ayuu soo dhex galay ciidankii meesha fadhiyay markaasuu yidhi isagoo ay gacanta kaga dhacday oo hawanaya ayuu yidhi war markaas waa raggii la isagoo haya marka adigu ninkaa miyaad aragtay miyaad la kulantay waqtigaas waan alla saraakiishii la kulantay baanu ahaynay markaa kusoo noqotay u timid markaa magaranaysaa cornel ero oo tidhi magaranaysaa maxaa raggan dee lagu laayay iyo arrimaha oo dee magaranaysaa waabanu weydiinay oo waan u tagnay oo wax saraakiisheedii oo dhan ba u tagtay badidooda halkee bay ahayd halkaa ugu tagteen markaasay kula hadlayseen waxaanu ugu tagnay taliska oo ka samaysnaa markaa hodheel ku yaala jigjiga hodheel ku yaala ayaa taliska magaranaysaa aagaasi markaa laga dhigay hodheel magaalada bartikeega ahaan jiray ayuu talisku jooga halkaasaan ugu tagnay isagu muxuu idinku jawaabay markaad tidhahdeen arrintaasi yaa ka dambeeya ama sababta lagu dilay maxay tahay sababta lagu dilay wuxuu yidhi waxay ahayd buu isagu lahaa askar fara badan waxay sameeyeen inay markan dagaalka kululaaday inay dad badani cararaan oo ay aada uga soo baxbaxaan markaa isagu wuxuu yidhi sababta lagu dhigayay horta waxa bixiyey buu lahaa madaxdaa ka sarraysa amarka bixisay buuri marka anigu waan fulinayay buuro magaranaysaa si aan nin dambe usoo bixin oona usoo cararin rag magaranaysaa example lagu tuso oo magaranaysaa laga dhigo ayuu isagu ka dhigay laakiinse taas rag badan oo saraakiila dowladda ka bixiyo yidhi war dee wax suurtagelaya taas ma ahayn oo raggan ururada dagaalamayaaba laga soo guray kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq caqliye oo ka mid ahaa